waalid labada qodob kale maanta ku xijinayno sababta keenta wiilashu inay waxbarashada ka cagajidaan ka caajisaan isla markaana aanay yeelan hadaf shishe motivation badan aadan ku arag wuxuu noqonayaa qodobka saddexaad aan dhahno haddii aabbuhu uusan qayb ka ahayn noloshooda oo guriga aabba la-aan uu yahay ama guriga stress ka jiro ama guriga family conflict uu ka jiro buuq mar walba dhex yaala hooyo iyo aabba meeshii ka maqan reer marka aan isku toosnayn wiilasha arrintaasi way xanuujisaa wiilasha stress iyo depression bay ka qaadaan laakiin way qarsadaan meesha gabdhuhu ay ooyi karaan oy express garayn karaan ka hadli karaan wiilashu waxay kaga duwan yihiin way qarsadaan way liqaan iyagaa isku kooba stresska guriga ka haysta taas waxay keentaa inay mar kale ka cagajiidaan waxbarashadii taas waxay keentaa mar kale in aanay xiise u haynin waxaana sababayo saameynaya oo hamigooda burburinaya guriga cultureka ka jira dhaqanka ka jira gabdhuhu way ka duwan yihiin xalku marka wuxuu noqonayaa in stresska haya iyo xanuunka haya iyo in waxbarashadoodu ay la ciirayso guriga inuusan aabe ay ku daydaan joogin ama buuq ka jiro in la yidhaahdo guriga adiga aabba u ah guriga adiga ninkii u ah in dhibkan jiro loo isticmaalo shidaalkii ilmahan horey u wadi lahaa oo la yidhaahdo maanta hooye iyo reerkii adiga nin u ah waxbaro meel uga sooba sidaasaa lagu bedeli karaa stresskan haysta ee waxbarashadii u diidan ee hadaf fog inay yeeshaan kasoo horjeeda buuqa iyo dhibka ay qarsanayaan ayaa waxaa la barayaa inay ka hadlaan inay sheegaan markay kuu sheegaan dhibka hayana adigoo aad u sheegto dhibkaas iyo stresska guriga ka haysta iyo aabala-aantaa ka jirta iyo reerka aan isku toosnayn inay u bedelaan shidaalkii iyagoo hormarin laha iyadoo la odhanayo adigaa reerka wiil u ah adigaa reerka hooye ay ku eeganaysaa adigay caruurteed yar ku eeganayaan taasuna waa dhib iyo xalkiisii oon israacin qodobka kale ku xijinayna waxa weeyaan lack of role model inta badan laba arrin hadday israacaan wiilasha way ku adkaataa waxbarashada inay jeclaadaan hami sarana inay yeeshaan midda koowaad wiil walaalo ka weyn hadduunan jirin oo markaa noloshii horumaray oo akademiga oo jaamacaddii aadaya uusan guriga ku arag nood qaadanaya oo presentation samaynaya oo horey u socdo ma jiro guriga wiil walaalkiiyo ka weyn uu ku daydo sidoo kale waxbarashada iskuullada markaad eegto maanta dumarka ka badan ragga macallimiinta dumarka ayaa ragga aada uga badan weliba elementaryga iyo middleka markaad aado ilmahan marka gurigina wuxuu ku arkay walaal ka weyn uu ku dayanayaa ma jiro oo waxbarashadii jeceloo meel ka gaaray haddana iskuulkii markuu yimaado wuxuu arkayaa macallimiintu dumar bay u badan yihiin qof dumara wax u dhigaysa waxaa maskaxdiisa soo gelaysa waxbarashadan iskuulkan iyo sayniskan iyo xisaabtan waa hawl dumar ee hawl ragma midaasaa maskaxdiisa isaga soo gelaysa sidaa darteed waxaan u baahannahay in aan isku dayno in arrinta saasa iyo inuu sidaa u arko in waxbarashadu ay tahay wax dumarka loogu talagalay aan markaaba ka bedelno annaga oo ku xidhayna wiilkaas u raadinayna wiil kale waxbarashada fiican wuxuu noqon karaa ina adeerkii wuxuu noqon karaa family friend qof ay reerkiis yaqaanaan wuxuu noqon karaa macallin kaloo mentor gareeya oo markuu ka yimaado iskuulka aad ugu geynayso meelaha lagu mentor gareeyo ardayda kor loogu qaado himiladooda meelaha wax lagu baro ee ma aragtay loogu kabo wixii waxbarashadii iskuulka ka dhineed marka taas waa inay noqoto marka nin waa inuu noqdo qof wiila uu ku dayanayo waxay kabaysaa marka role model la-aantii guriga ka jirtay tusaale la-aantii guriga ka jirtay ee ahayd walaal ka weyn inuu ku daydo waxaa kabaya wiilka ama in adeerkii ah ama saaxiibkii ah ama macallin nin ah oo markaa gelinka dambe iskuulka markaad ka keento ku xidh waxay kor u soo qaadaysaa hamigiisii hoos u dhacay labadaa qodob ayaan ku xijinaynaa iyo xalkooda fadlan qodobada kale kala socda janaalka waalid legacy ee idinka laydii sameeyey waalid fadlan subscribe dhaha followna dhaha caruurteenna iyo annaga allahayna xifdiyo asalaamu calaykum waraxmatullah